nacashka maalinta lagu saaro wuxuu ku ilowsiin doonaa faraskaagii iyo gaadhigii laanguruusarkii iyo sariirihii qaaliga ahaa aad ku raaxaysanaysay baad ku iloobi doontaa yowma alqiyaamati laa maalun walaa waladun maalinta qiyaamahana kii maal badan lahaa maalkiisu anfici maayo kii qabiil laandheeraha ka dhashay qabiilkiisu anfici maayo kii awlaad badan lahaa awlaaddiisu anfici mayso wadammatu lqabri tusi leylata alcursi mar allii marka qofka qabriga la dhiga buu rasuulku noo sheegay xadiis kale qabrigu sidaa buu iskugu yimaadaa deedna feedhaha qofka ayaa sidaa isku dhaafa haddii qabriga isku yimaadkiisa nin ka badbaadi lahaa buu nebigu yidhi sacad binu mucaad baa ka badbaadi lahaa buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam atadruuna man huwa sacad waa ninkii geeridiisa maalintuu adduunyada ka intiqaalay carshiga raxmaanku u gariiray faraxan liquduumihi imaadku adduunyada ka tegey bixidda sacad uu maalintii adduunyada uu ka baxay ayaa ilaahay jalla wacalaa carshigiisa raxmaanka u dhaqaaqay farxad daraaddeed jibriil baa soo dhaadhaco nebiga u sheegay oo yidhi nin asxaabtaada ka mid a ayaa go'ay oo ahlu samuhuna ay ku bishaaraysanayaan imaadku adduunyadii ka yimiday markaa buu nebigu sara kuxuu yidhi yaa jibriil sacad binu mucaad baan u malayn buuhi inuu go'ay deedna uu soo degdegay nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaa saxaabada rasuulka kabihii ay gashanayn ay ka go'een markaasay nebiga soo gaadheen markaasay idhaha yaa rasuul allah socodka waa nagu daalisee markaa buu nebigu yidhi haa waa nigu daaliyey sidii xandalo malaa'igtu ay ugu maydhay inay sacadna hortay u maydho ayaa ka cabsoonayo inaan sacad gacantayda ku maydhaan u soo degdegayay buu rasuulku yidhi waxauna jibriil ii sheegay buu yidhi carshiga raxmaanku faraxan isagoo ku faraxsan imaadka sacad uu adduunyadii ka yimiday inuu carshiga raxmaanku u gariiray ayuu jibriil ii sheegay buu rasuulku yidhi markii janaasadii la soo saaray la qaaday bay munaafiqiintu yidhaahdeen maydkan fududa markaasuu nebigu yidhi ha odhanina sidaa war ma haysaan idinkuye 70,000 oo malag ayaa maanta arlada u soo daadegay maanta ka horna malaa'igtaasi arlada maynan iman sacad binu mucaad janaasadiisa ka soo qayb galana weynili sidaa buu rasuulku yidhi markii qabriga la dhigana nebigu wuxuu leeyahay qabriga isku imaadkiisa haddii shakhsi ka badbaadi lahaa sacad binu mucaad baa ka badbaadi lahaa buu rasuulku yidhi wadammatu lqabri tunsi leylata alcursi habeenka u horraysay zafaafka waa habeen taariikhda ku qoran weeyaan habeenka u horraysay nin kastoo dhallinyara uu gabadhiisa zawjadiisa xalaasha uu la aqalgale iskugu horreeyeen habeenkaa waa habeen taariikhiya weyn lama iloobo laakiin isku imaadka qabrigu isku imanaya marka u horrayse lagu dhigo habeenkaasaa lagu halmaamaa buuhi ninka shaacirku aaway shucuurtaa iyo dareenkaasi maanta وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه ذي النورين markuu qabuuraha dul yimaado ilmadu garkiisa qoyn jirtay ilaa laabtiisa waxaa la yidhaha cusmaan jannada iyo naarta ayaa laga sheekeeyaa ma oydida qabriga markaa dul timaada maxaa loo oydaa baa lagu yidhi waxa uu nebigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam ayuu yidhi qabrigu waa aqallada adduunyada ugu dambeeya weeyaan waana aqallada aakhiro ugu horreeya halkaa ninka ku nabadgalana nabadgelyadii runta u dambaysa buu rasuulku yidhi halkaa ninka lagu cadaabana cadaabkii weynaa baa u dambeeya buu rasuulku yidhi cusmaan radia allaahu canhu waardaah waa saxaabigii jaliilka ahaa ee adduunyada ilaahay ku imtixaamay loo sheegay in la imtixaamaya welibana iska sabray beertii nebigu uu ku jiray buu albaabka loo garaacay nebiga abaa muusa alashcari baa iridda taagnaa markaasuu nebiga u sheegay yaa rasuul albaabka waxaa garaacaya abibakar markaa buu nebigu yidhi soo gal ka dhe abubakar jannana ugu bishaaree haddana abaa muusa halkii buu fadhiistay haddana waa la garaacay waayo waa cumar waa kuu soo idan qaadiya u kaadiya yaa rasuulallah cumar baa albaabka jooga soo gal ka dhe jannana u bishaaree haddana waa la garaacay yaa rasuulallah waa cusmaan baa albaabka taagan u bishaaree janno balaayaha siibi doontana u bishaaree buu rasuulku yidhi markii loo sheegay la yidhi nebigu jannana uu kugu bishaaraynayaa adduunyadana balaayo iyo masiiba kugu dhici doontaa wuxuu ku jawaabay allahu lmustacaan aad safka hore ku wada tukataan ama mid meelahaas ka barjeeyo qaraabadiinna hadduu 2 jeer ku yidhaahdo warniyo manaan baan kugu arkado baabur kula qallima ka warran waxaad odhan war adu noloshidaad ka xuntay daa'in kaarqabaad hee soo ma waad ka raacabsan waa mid meelahaas ka barjeeyo qaafila oo masaajidada iyo diintii ilaahay cilaaqa la lahayn hadduu 2 jeer riixun kuu sheegaa saa u nixo oo sidaa u qarqari ruuxbaba kuu dhacaya
محمد عليه الصلاة والسلام صادق المصدوق ما هو شيء إنه بلايا الدنيا كوا أصيب دونته وعو إليه هذا الله المستعان. وهذه فاطمة بنت محمد رضي الله عنها سيدة نساء هذه الأمة في الجنة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام والنبي قد أحفر ديو أي فاطمة النبي أصوغ شيء ويكفر يستي ويدنكتي ودنكتي النبي عليه الصلاة والسلام إن أنتي مرقاسو كالي فاطمة يرمى أخو شاقي دكتو أخو شاقي وعيد الوان للما قد هذا فاطمة عائشة أركيسة أم المؤمنين رضي الله عنها مرقابو النبي يقول هذا كالي فاطمة أريك أنا أخو شاقي دكتو أحكى له أخو شاقي إسلام أركيبا فاطمة هذا هو يقص الشيء إيه فرحة عائشة مالين دنبا ويردي oo diraarintii maalinta adii aabahan dhexmartay ee marna ku ooyday marna aad ku farxaday ii sheeg markaa bay tiri hooyo ku sheegi maayo sirtaas aniga iyo nabiga naga dhaxayso kuma sheegayo walaakin Aisha may halmaamine markii nabigu kaleey salaatu wasalaam adduunyada uu ka intiqaalay ayay maalin u yeedhay ka tiri maadaama nabiga adduunyada ka intiqaalay sirtii adii nabiga naga dhaxaysa maanta inaad sheegto way ku banaantahay ii sheeg markaas ay tiri hadda waan ku sheegayaa arrin sirta u horeysay kaliilmeeyay waxay hayd waxa uu ii sheegay geeridiisu ii sheegay inay dhowdahay dadna waan ooyay bay tiri oo intaad ugu arkayseen sirta labaad uu ii sheegay ku farxay waxay igu hayd wuxuu igu yiri ooyin Faaduma ay aamus miyaanad raalli ku ahayn haweenka ummadda nabi maxamed ee jannada galaya gabadha ugu darajo sarreeyay ugu barwaaqaysan in ilaahay ka dhigay miyaanad raalli ka ahayn raalli baan ahay tiri riwaayad kalena wuxuu nabigu ku yiri haweeney aamus Faaduma ehelkayga qofka dhimashada igu soo xigay oo adiga aamus igu yiri dadna waa farxay bay tiri qof dhimashadiisii loo sheego farxaya ka warramay intuu diyaar garoobay qofkaas هشام بن عبد الملك أيا ويا أبو حازم يزيد الرقاشي وعلي سؤال بنك ويدين يا شيخ ما لنا نكره الموت هدانا نقول بقراء النهي ما عندي مشهد وكرهنا بيقول دي مشهد وكعب صناعي زمن كاس وتابع تابعينتي وقرونتي هرويا مدحض أمبا nolosha adduunyada jeclayde caamada muslimiintu aakhirada inay tagaan bay jeclaayeen maanta zamankeenna faqiirka aan gurigiisa caawa waxba aanan oolin inuu aakhirada taga diyaar ma u yahay faqiir hatta quutal yawm aan haysan haddii la yidhaahdo aakhirada diyaar ma u tahay maybe odhan inteen halkaa fadhiday masaajidka joogta haddii halkaa hadda malag isu taga malag oo yidhaahdo intiinaas ilaahay raalli buu inaga noqday albaabadii jannadana waa laynii furay ayaa u diyaaray imikada inuu galo haddii la yidhaha ka warrama wuxuu yidhi abu xaasim baa yidhi waxaad dhimashada u karhaysaan anaa kuu jawaabay haye adduunyadan ayaad camirteen oo aad qurxiseen aakhiradiina waad iska kharribteen oo waad baabi'iseen marka daarta aad qurxisateen aad camirteen inaad ka tagtaan daar aan waxba iniga dhisnayn oo niga baaba'san oo niga halowsan inaad u guurtaan dee ogolaani maysaan buu ku yidhi dadku goormay aakhirada jeclaanayaan goormay la kulanka ilaahay jeclaanayaan waa marka dadka acmaali ka horrayso waa marka sahay ay ka horrayso abu dar baa odhan jiray saddex baan adduunyada ugu jecelahay dadkuna way karhaan dhimashada iyo faqriga iyo bugtaanta saddexdaa dadkoo dhan way dhibsadaan aniguna waan jecelahay buu yidhi maxaad la jeceshahay baa lagu yidhi oo waxaan la jecelahay faqriga waa tawaaduc buu yidhi tawaaduc baa laga helaa faqriga xanuunka waxaan la jecelahay waa dembi dhaaf kullamaa qofka mu'minku xanuunsadaba dembi baa laga dhaafaa dhimashadana waxaan la jecelahay maad garanaysaan buu yidhi may noo sheeg la kulanka rabbigay baan jecelahay buu yidhi laana dadkaasi waxbay qadimteen iyagu maalintuu dhimanaya abu dar cidla cad buu keligii ku dhintay meesha ribda la yidhaah xaaskiisii buu u yeedhay isagoo sakaraada way ku dul oyday markaasuu ku yidhi naa maxaad la ooyaysaa markaasay ku tidhi kaama maarmi karo kuma maydhi karo
kuma aasi karo mara kafan kuu noqotana kuma hayo markaasuu ku yidhi dhegayso halkaa u bax tuurkaa u bax tuurkaa u bax buu ka yidhi safar jamaaca mu'miniina soo mari doontee kuwaaba anigay aasi doonee iigu yeedh buu ka yidhi markaasay ku tidhi xaggee dad aan ka arkaa bay tidhi xaggee dad ka soo maraan xilligan jidka xaajigii xajka ka noqonayna uu go'ay haddee toole oo xajkiina mar horaa laga noqdee dadka dariiqa soo marayaad sheegaysa waa dadkee bay ku tidhi nayaa i dhegaysa buu yidhi koox anigu aan ka mid ahay annagoo maskiidka dhex fadhin oo xalaqad fadhina ayuu nebigu nagu soo baxo wuxuu yidhi mid baa inaga mida ininka keligii cidlo ku dhimani doona keligii buu cidlo ku dhimani doonaa aaskiisana jamaaca muslimiin oo mu'miniina ayaa ka qayb geli doonta raggii maalinta aan la fadhiyey nin kasta uu dhintay nin magaaluu ku dhintay nin tuuluu ku dhintay nin reerkiisiibuu ku dhintay ninka cidlada ku dhimanaya nebigu sheegay ee jamaacadda mu'miniintu aaskiisa ka qayb geli doonto waa anige ordoo tuurka u baxo jamaacaddii nebigu sheegay baa soo mari doonta iigu yeedh buu ka yidhi bal sida hadalka nebiga u rumaysan yihiin dadkaas muslimiinta maanta adduunyada joogta iyo muslimiinta qarniga caalamka joogtay farqiga inoo dhexeeya waa yaqiin khabarka nebi maxamed ay ka maqleen ayay boqolkiiba boqol iyo ku rumaysnaayeen boqolkiiba boqol ninkii nebigu uu sheegay buu yidhi waa aniga ee cidlada ku dhimanaya raggii kaloo dhan way wada dhinteen tuulo iyo magaalo iyo qaryad iyo reerkoogay ku dhinteen ninka cidlada ku dhimanaya waa anige jamaacaddu nebigu sheegayba aaskayga ka qayb geli doontee halkaa u baxoo joogsa buu yidhi jamaacaddii baad arki doontaaye isaguna sakaraadkii baa haya tuurtaaba buur bay fuushaa xaggaa iyo xaggaa wax kala socday eegtaa haddana way soo noqotaa maradeeda intay qoysay madaxa u saartaa haddana way ku noqotaa siday u noqnoqonaysay bay aragtay jamaacad muslimiin oo dariiqa maraya maradeedii bay markaa sidaa u tidhi baa la dhihi markaa bay soo leexdeen haweenay bay arkeen buurta dul taagan waxay maxaa cidlada ku dhegay waxay tidhi saaxiba rasuulillaahi sal allahu alayh wasalam nin nebi maxamed saaxiibkiiya ayaa cidladaa ku dhimanaya kaalayo ila aasa bay ku tidhi markaasay idhahdeen oo waayo waxay idhahdeen waxay tidhi waa abu dar alghifaariyi radia allahu canhu abu dar baa cidlo ku dhimanaye kaalayo ila aasa markaasay soo yaaceen ay idhahdeen nufdihi biaabaa'ina wa ummahaatina hooyooyinka iyo aabbahay ayaa ku furanaynaaye masaaxiba rasuulillahi baa cidlo ku dhimanaya markaasay abu dar oo sakaraada ugu yimaadeen markay dhulka ka soo qaadeen ee dhabta ay ku qabteen uu indhaha kala qaaday horta wuxuu ku yidhi bishaaraysta bishaaraysta mu'miniin baa tiinoo nebiga idin sii sheegay buu yidhi xadiiska nebigu markii buu u bishaareeyey ta kalena wuxuu yidhi dhegaysta laba qof oo muslimiina walaalkood ma dhinto hadday u sabraan oo aynan u ooyin oo ixtisaabna ilaahay ajar ka dalbaan oo u sabraan addoonkaasi naar ma arkee waa niga dhimanayaa maanta oo cidlaan ku dhimanaya nebigaa i sheegee hay ooyine iska sabr buu ku yidhi arrinka saddexaad ee nii sheeg waxa weeyaan mara kafan igu filan haddaan haysto iyadaa kafan layga dhigi lahaa laakiin ma haysto xaaskayguna mara kafan igu filan hadday haysana maradaabaa kafan layga dhigi lahaa iyaduna ma haysatee idhegaysta walaalahayow raggiina meeshaa maraya dowladda islaamka nin u soo shaqeeya hadduu inigu jiro dharka uu sitaa aniga kafan ha iga dhigini buuhi kafan ugama barin dharkaas muxuu dhowrayaa xaaraantuu ka dhowrayaa jidhkiisa inay taabato diin buu wataa taqwad buu wataa iimaan buu wataa zaad buu wataa zaadkaa uu aakhiro la tegaayo inuu ka boorooba ayuu diidan yahay innagana zamankan halkeen marayna waxaan ku cuninba waa la cunaa ilaa wax walba cuntay soomaaliya gaajada unbaa xaaraana bay ku odhanaya gaajada unbaa xaaraana kullu jismin nabata fi lxaraami fannaaru awlaa bihi jidh kastoo xaaraan ku kora buu nebigu yidhi naartaa u xaq loo cuni doonta buu rasuulku yidhi xaaraantu iska daa adiga ilaa oo shahwadaaday taaiirisaa shahwadaada way saamayn ubadkaaga xaaraanta taqwaduna awlaadday iska soo baxdaa waracu awlaad buu ka soo baxaa lidaalika nin boqora quruntii hore ah ayaa qasrigiisa soo galay isagoo walwalsan xaaskiisii baa ku tiri maxaa ku helay boqor muslima buu ahaa mujaahid ah dowladihii ka dhisnaa bay ahayd bilaad alhindi wasind markaasuu yidhi inankeenii aan ciidanka u dhiibay ee mujaahidka ahaa
ayaa la ii soo sheegay in la soo jabiyo laga soo adkaaday markaasay tiri warkaa sax maaha ku noqo sax maaha warkaa waxba kama jiraan bay tiri ha lagu noqdo u yaaba boqorkii oo maxaad og tahay anu waxbaan ogahay bay tiri 7 maalmood kadib haddana boqorkii qasrigii buu soo galay isagoo faraxsan xaaskii baa ku tiri maxaa dhacay maanta waa faraxsan tahay wuxuu yidhi inankeenii gaalada uu ka soo guulaystay haniimana uu soo galayaa maanta warkan dambaa saxa bay ku tidhi maxaad og tahay adigu waxay tiri waxbaan ogahay maxaad og tahay balii sheeg maalintii horena warkii hore waa diiddo warkii hore runtaa buu noqdo been buu noqdee waxay tiri inankaygaa curadee mujaahidka maalintuu calooshayda galay luqmad xaaraana afkayga inay gasho waan ka ilaaliyey bay tidhi markaan dhalayna ee naas nuujinta aan u bilaabayna markaan naaska nuujinayo waan u weysaysanayay bay tiri ilmaha tarbiyadiisii halka aan ka soo bilaabay gaala sidee buu uga soo baxsadaa ma dhici karta bay ku tiri xaaraantu saamayn bay ku yeelataa dadka bini aadamka lidaalika maanta muslimiinta cadadkoogu uu badan yahay laakiin tayadeennu way yar tahay maanta saxaabada rasuulkuna cadadkoogu uu yaraa laakiin maxaa badnayd tayadooda ay quality bay ahayn quality muslim quality bay ahayn bushaaro haddii safar loo geli jiray barashada qur-aanka hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo dugsiga online-ka ah ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada culumta shareecada islaamka tarbiyada awlaada iyo luqadda carabiga haddaba isqoristu waa ay socotaa hadan hore ogaad wixii faahfaahina kala xidhiid nambarada shaashada kaaga muuqda hamoodaan dugsiga online-ka ee barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee daarul hijra